قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ولا لهيغ مسلمين تاهي قالقا وحان دونيا إن آن إذن لو ذاقو حديث كان قالقا النبي يقول ليه عليه الصلاة والسلام قفك وحا شر أو إذن أغفلا وحا شر أغفلا إن أوليده إن أحقره ولا الكيس مسلمك uusan waxba ka soo qaadin uu yiraahdo ruuxa muxuu yahay muxuu galaya muxuu qaban karaa sida inuu yiraahdo in uu liido walaalkiisa muslimka ah arinka ayaa shar oo idil ugu filan haddaba walaalkayga qaaliga ah ka fogow arinta ayada ah oo walaalkaaga muslimka ah haliidin walaalkaaga muslimka waa inuu agtaado wax weyn uu ka ahaadaa maxaa yeelay liiditaanka walaalaha la liido oo walaalkaaga muslimka aad liido arinka isaga ayaa dambi oo idil iyo shar oo idilba kugu filan ruux waliba fariinta ayada soo gaarto waxaan ka codsanayaa in uu la wadaago walaalihiisa muslimiinta ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh